Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waxaynu ka faalloon doonaa boqortooyadii la odhan jiray Gudabiirsi. Waxaana inoogu horreyn doontaa baadidoonka taariikhdeenii la doogay, cadowgeennuna daahyada saaray. Magacyada qabiilada eed maqli doonto meel kale ha ula kicin. Waxaa ku xidhan taariikhdeenna. Cidna kuma hoosaysiin doono, cidna kuma sarraysiin doono. Laakiin waxaynu cagta saari doonaa taariikhdeenii cadowgeenna u gacan gashay inaynu waxuun ka helno, si aynu u ogaanno cadowgeenna guunka ee guuldarradeenna ku iirsada, dabardambeedkana inala daba taagan. Gudabiirsigu waa qabiil fac weyn, lahaana boqortooyo magac weyn, maamul iyo kala dambeynna ku caan ahaan jirtay waqti aad u fog, qiyaas ahaan qarnigii 5aad iyo wixii ka horreeyayba. Waxay degenaayeen agagaarka Saylac, gaar ahaan inta ka dhex leh buurta Karamardha iyo badda Saylac. Waxay lahaayeen dastuur ay isku maamulaan, sharci loo kala dambeeyo, iyo xeer beegti dhex ah, sida laga helay kutub taariikheedkii uu qoray caalimkii weynaa ee la oran jiray Barkhadle Cabdilaahi. Wuxuu ku qoray ninka la odhan jiray Gudabiirsi, kuna magac dheeraa Samaroon, inay labada magacba ahaayeen naanees. Magaciisa saxdana la odhan jiray Maxamuud Siciid Sheekh Xasan Maxamuud, Sheekh Maxamuud Axmed Madaluug Abibakar oo dir la oran jiray Abibakar Cabdiraxmaan, oo iri la oran jiray Cabdiraxmaan bin Ismaaciil oo la oran jiray Aji, iyo Ismaaciil Cismaan oo la oran jiray Soomaal, iyo Cismaan Jibriil oo la oran jiray Waarid. Maxamuud waxa uu howlwadeen ka ahaa ciidan ka dagaalamayay dhinaca galbeed. Guulo waaweynna waa uu ka soo hooyay. Ciidankiisii wuxuu u qabsaday magaalooyin ay ka mid ahaayeen Abbaasa, Awbarre, Awbuube, Awuufle, Camuud iyo qaar kale oo badan. Raadkoodiina uu ku yaallo dhanka ama barbarka waqooyi galbeed. Maxamuud wuxuu ahaa raggii la dagaalamayay nimankii la odhan jiray Gaalaha ama Oromada ee dhulka Soomaaliyeed soo galay qarnigii 7aad ee Hijriyada, wuxuuna caawinayay boqorkii weynaa ee Sacaadadiin oo ka mid ahaa boqorradii Soomaaliyeed, ahaana ninkii Saylac xukumayay muddo dheer. Maxamuud markii uu guulaha gaadhay, waxa uu ku soo laabtay Saylac. Durbaaniyo caleeno qoyan ayaa lagu soo dhaweeyay. Boqorkii Sacaadadiinna waa uu ka hor yimi, foolaad iyo xafladna waa uu sameeyay, isaga iyo ciidankiisii libta soo hooyay. Sidaasna waxa uu kula baxay Samaroon, iyadoo loogu ishaarayo magaca weyn, geesinimadiisii, libtiisii uu soo hooyay, iyo cadawgii uu heeray ee ciidankiisa cunsiiyay. Magaciisiina waxa lagu qoray diiwaanka geesiyada. Kadib waa uu guursaday, waxaana u dhashay wiil uu ugu magac daray Makadoor, wuxuuna u guuray buurta la yiraahdo Buur Cali. Markii uu in badan deganaa, xoolo badanna ku dhaqday, bashbash iyo barwaaqo baalaha iska dhigay, ayay islaayeen qabiil kale oo la odhan jiray Wado Cali ama Danaakil, waxaanay ka dhaceen xoolo badan. Kadibna waxa uu u guuray dhanka bari isagoo ciidan badan wata. Waxa uuna degay meel la yiraahdo Maydh, waxaana deganaa halkaa Sheekh Isxaaq, waana la soo dhaweeyay, meelna waa la dejiyay. Waxaa la sheegaa inuu qabiil deganaa Gado gaashaanbuur la samaystay, halkaana loogu bixiyay magaca Gudabiirsi oo ka turjumaya Gado ayaa uu gaashaanbuur la samaystay. Intaa kadib, ilaa iyo uu dhimanayay, waxa uu ku noolaa Maydh iyo agagaarkeeda, waxaanu dhintay taariikhdu markii ay ahayd 795 Hijriyada, waxaana lagu aasay Dibgax, waana la siyaartaa. Markii ay taariikhdu ahayd qarnigii 10aad ee Hijriga, waxaa qabiilka ku dhacay dhib fara badan. Waxay islaayeen qabiilooyin aad u fara badan, waxaana islaayeen qabiilooyinkii u dhowaa, ha ugu daraadaan Gaaluhuye ama Oromadu. Dad badanna waa ay kaga leedeen, maata iyo wax magarata aan waxba galabsanna way ku dhinteen. Waxay iskugu urureen meel, talana waa la iswarsaday. Kadibna waxaa lagu taliyay in aan dhibkan laga bixi doonin haddii aan la samaynin madaxa iyo rag la taliya. Muddo kolkii la gorfaynayay, waxaa la isla qaatay ninka kaliya ee isku keeni kara, madaxna u noqon kara
inuu yahay Cali Mikaa'il Dheere, waxaanay ku doorteen caqligiisa, sharaftiisa, geesinimadiisa, waji furnaantiisa iyo dad la dhaqannimadiisa, waxaana isla halkaa ku dejiyeen dastuurkii ay ku dhaqmi lahaayeen. Daawade, ka qayb qaado oo ka mid noqo dadka u gucleynaya ee u xagalka rooraya inay helaan taariikhdooda, lanana soco qaybaha dambe.